waxaan habka loo kaydiyana waxaa weeye meeshaan waxaa ku jira cajaladaha ay ku duuban yihiin gabayada guurowga saarka buraanburka rag iyo haweenba halkan waa heesaha jacaylka ah oo aan isticmaalno oo idaacadda iyo telefishinka ka baxa ama meel Soomaali joogtoba laga dhageysto iyaguna waa ilaa aasaaskii idaacadda ilaa hadeer waxaan hayaa hadda hees la qabtay 56 waa hayaa waa sanadad kadib markii la aasaasay 56 sijeedkan waa heesaha jacaylka iyagana mawlidka iyo tafsiirkii quraanka tafsiirku waa meel kale u yaala waqtiyaas isticmaalaa meeshan waa waxa weeye xorriyadda ka hor iyo wixii madax waddanka yimid ee soo booqday xataa khudbadda Xayla Salaasaa ku jirta Kenya ku jira muxuu ahaa adugu wixii soo maray madax ahaa waddanka ama ha u dhasheen ama dibadda ka yimaadeen halkaanay ku jiraan soo soco marka hadda aan gacanta ku hayno oo telefishinka iyo idaacadda ka baxa waxaan ka reebnay wixii aan waqtiga la socon waa kuwa halkaas halkan waa munaasabadaha iyaga laftooda diiniga ah weeyaan wacdiga ya canjiladahan waa ay ka duwan yihiin kuwii hore ma kuwa shaqo kuma lihin kuwa gaar marda maaha weeyaan canjiladahan ku shaqayna waa kuwa soo kaalay marka waqtiga madadaalada idaacadda loo talaga sii dayo oo la socdo idaacadda raadiyaha waa halkan ilaa waqtiga kaas waa ilaa calanka markii la qaatay xorriyadda ilaa 90kii waxay waa la dhigay halkan ku jiro iyagana hees noqoto ama meeshan ka dambaysa iyada waa tafsiirka quraanka kariimka Sheekh Aadan Sheekh Cabdilaahi waa kuwa asagoo dhan waa halkaas u yaala markaynu soo gudbiyo haddana telefishinka loo keenay wax ay yihiin oo ka hadlayana ma aqaan yaa telefishinka jiray markaa yaa masaaridu keentay wax ay yihiin ma aqaan halkaas kaydka ka mid soo gudub sawaaxiliga canfarta oromada faransiiska waa 8 luqadood bay ahaayeen Soomaaliga ku jiro wixii aan Soomaali ahayn ee luqadahaas ku baxayay cajaladahoodii waa kan halkan iyo dhinacan inta qaybada ku keensan yihiin waa 7 luqadood oo kale waxay barnaamij u baxayay heesaha ama muxuu ahaa barnaamijyada kale ay tafsiirku xataa tafsiir waa ku jira iyagoo afka oromada ah marka waa kan soo soco wadani iyo jacayl ayaan kusoo tusan 2 meelood ah iyagoo isku jira oo riwaayadahoodiiya oo dhammaystiran maalan kan ka soo qabo halkan maxaa ku duwan heesooda jacayl yahuudiga kamida cali cusmaan waa riwaayad dhan heesaheedii riwaayadan bilaaw ilaa dhammaad heesihii ku jiray waa heesihii bas maya waa heesihii keliya kulligood waa saas wada heesihiiya marka wixii xagga laga waayo halkaan ka helayo ka baarna iyagoo riwaayadda ku dhex jira heesiyo caadi weeyaan meeshaan dhinacan aad arkaysid waa oo wadaniyadda tilmaamaysay ama dagaal tilmaamaysay ama xornimo tilmaamaysay 22 sane kacaan ku jiray heesihii ahaa waa kaa
halkaan ku jirin halkaan iyadoo meel kalena ay jiraan haddana meeshaan waxaa ka buuxa 3 qol oo afafka ajnabiga ah oo madaafiicda ay baabi'isay wixii baan ka soo aruurshay halkaana soo dhigay waxay u baahan yihiin la dhegaysto la kala saaro qaarkoodna burbursan yihiin waa maya kuwan waa saafi aan soo soocay waxay burbursanaa maaha ya waxay u baahan yihiin dib in loo dhegaysto muxuu ahaa luqadaha kelimiga ingiriisiga carabiga iyo soomaaliga wixii ku jiro oo dhan waxaan ka soo aruuriyey meeshii diyaaraduhu baabaasheen yaan ka soo anaa waxaasoo dhan gacanteeda ku soo aruurshay waa buuxda halkaas fiiri xaggaa dambe oo dhan fiiri luuqa fiiri luuq dhan waa buuxaaya halkaas weeyaan barnaamijyo waxaa noo soo diray carabta waa masar ciraaq muxuu ahaa masar iyo ciraaq iyo suuriya iyo carabtaasa waxaas noo soo diraysay waa barnaamijyada ku saabsan ugu talagaleen TV-ga qaranka TV maya idaacadda qaranka halka loogu talagalay halkaan saas horta halkaa ku dhamaatay kow meeshaan kore arkaysa unisom ee maraykanka diyaaradihii maraykanka ayaa halkaa madfac ku soo riday intaas yaraad duleeshantay intiina waa la dhisay xilligii caydiid baa hayd caydiid waa dib u dhisay marka inta kaydkan waxba gaari kara wixii kaloo dhibaho waa gaarkeeda kulaliya waxay keensadaan laakiin waa fiicaya kaydku xilligii waxay ahayd SNL markii dhalinyaradii joogtay ee ka tagtay yaa aniga rag SNL ka mid ahaa waxaa la yidhi meesha tag oo furada saasa la igu dhiibay iyadoo cidlaah oo lagu kala tegey ayaa furaha la ii dhiibay sidaasaa lagu jooga ma soo dalban anigu in xagga nabadgelyadeeda iyo ilaalinteeda 2007 la ii soo diray meesha oo aan kormeer ahaan u joogi jiray oo la oran jiray bal wixii dhalinyaradu biiso iyo waxaas saasaan ku yimid caqabadihii ugu badnaa aad ka wajihi jirtay kaydka markii aad joogtay maxay ahaayeen horta waxay ahayd in maalin 7 saacadood rabo inaan rawaxo baxo in wasaaradda horteeda nin intuu soo kaxaysan rag hubaysan geesaha xabadaha laga geliyo la yidhi furaha dhiib keligayna mahindadoo dhan baa joogay marka shala la wada yaabo bisika la qabsaday waa isku adkeeyey adugu un meeshii ilaahay baa iga bixiyey nimankii furihiina anaa diiday saasay iiga tageen maalintaa oo khatar weyn baan ku galay haddana kaydka burbursan birahan oo kala yaalay oo faaruq ah waxba saarayn nin mooryaanti ka mid ahaa ayaa kula soo heshiiyey nin inuu gato birahan niman waxaan u tegey maleeshiyadii waxaan ihi warkaale meesha waa la bilaqaysanayaa ka qabto maleeshiyadii baa kii u tagtay
waxay is yidhahdeen maaqaane subaxii dambe markaan imid iyo bamba gacmeeda ila baxay anna markaa isagaan isku dhejiyo waxayna wada qarxi ilaa keligay markaa ma rabe baashiyo biimka ku celiyey ilaahay saas oo tala iyaga bixiyey rag badan ii hanjaba halkaa igu yimid meel dee inaad arki kartayn kale ma aqaane waxaa jira dariishado dambe oo hadda meesha idaacaddu ka baxda dhabarka qol la siman dariishado bannaan baa jiray naafta baasiin baa intii lagu shuba dab lagu shiday waxay moodayeen meesha inuu yahay istowdihii waa laga soo gaaray rag baa dhalinyara timid oo sidii baa lagu debshay iyadana horta dhibaatadaasaa jirtay kow baahi baa jirtay halkaasaan ka lugeeyaa markii aan tegayo waxaan aadayey halkaas iyo adu magaalada kooreeda kale yaa loo ku tegi jira ku imaan jiray cid kugu gargaaraysa iyo laftigeeda hataa nina wax ma weydiisan jirin ya waayo cid dadkaa wada baahama iyaga laftigoodii saasaan kusii lugan jiray kuna kusoo lugan jiran ku imaan jirin weesada waxaan ka doonan jirnay sheekh suufi shacli suufi meeshiisa halkaasaan caaga biyaha ka doonan jiray hadba rag baa ila joogay marba rag baa ila joogay raggii yaad ka xasuustaa kula jooga waagaas mursalkaasaa kamid ah oday cabdilaahi xasan la yidhahdo hadda laftigeeda jooga waa joogay oday kaloo dhintay oo cabdi qalaf la oran jiray asna waa jiray oo qarax ku dhintay yaa kale horta intaasaan hadda xasuustaa waa tahay raggaasi ma ragga sida joogtada ah kula joogay ahaayeen mase adiga unbaa culays ku saarnaayo si gaara u jooga kaydka baa culays ku saaraa anuu igu saaraa iyaguse waxay u joogeen midna maleeshiyada waardiyahaas ahayd buu ka tirsanaayo la joogay soomada garan midna xeeladuu dhex joogay ilaalo ka ahaa san laftigiisu laakiin aniga khaas waxaa ii ahaa weerarka lagu hayo kaydka waa tahay kaydkan marxalado badan oo soo maray 51 la aasaasay ama la furay dagaala badanaa soo jiray ilaa waagi dambe adigu si gaar ah u wareegtay oo xilliga carta ay ahayd maxaakiimtii u dhaxeeyay ilaa markii laga soo gaaro dawladihii ku meel gaarka ah waxaa jiray xilliga maxaakiimtu inay qasadaan meeshaan dhalinyaro aad u firfircoon baa timid horta waxay joojiyeen idaacadda way shaqaynaysay wixii suugaan ka baxay oo dhan bay joojiyeen muusig carabeed bay qaateen ayagoo wateen idaacadduna kombyuutarada kuma shaqaynayna makiinada wareegtay ku shaqaynaysay waa la yimid waxaa la yidhi waa gubaynaa kaydka faysaha ku jiraan waxaan u tegay nin iyaga madax u ahaa oo wasiir u ahaa magaciisa hadda ma xasuusteen nin wasiir u ahaa ayaan u tegey waxaa yidhi dhalinyarada iyo annaga na kala qabo haddaad kaydka igu og tahay dhalinyaradii waxay leeyihin meesha waa gubaynaa waxay u baahan yihiin oo kaydka uga baahan yihiin anugu diyaar baan u lahay wax allaala waxay ka rabaan oo de waxa weeye cajalado waxay rabaan inay wax ku qabtaan anaa siinayaa soomaaliga la taaban maayo kuwa ajnabiga aan siin jirin isagaa u yeeray ninkaa kaydka laguma farageli karu saas iiga joogsadeen laakiin inay gubaan bay dhalinyarada damceen dad badan baa ogaa halkaasi maraysa
wasiir dhowr wasiir halkaa waa loo soo magacaabay dhowr ra-iisul wasaarena waa la magacaabay madaxweyneyaal baa la magacaabay ra-iisul wasaare markaa jiray mar dhexe way abaalmarin buu siiyey madaxweynahan hadda jooga mar uu ra-iisul wasaare ahaa isna waa soo booqday wuu la dhacay meesha sida habkay tahay iyo kaydku siduu yahay isagoo ballan ii qaaday yaa isagii meeshii laga qaaday isagoo socdo haddana i yimid oo madaxweyneha waa i dalacsiiyey xagga ciidanka ya mar labaad buu haddana i dalacsiiyey waa jira waktigaas xilligaa jiray meeshu qaboojiye ma lahayn soomada garan waa jiraan kuwo kulayl dareemay oo hadal dambe aanu ka soo baxayn wuu jiraa waa tahay wakti dheer iyo dhibaato badan iyo waad soo dhaaftay maanta waxaa la joogaa marxalad cid badan ama dad badan ay kugu garab istaagi karaan oo ay ku garab taagan yihiin rag dhalinyaraha soo baxay hadda ku caawinaya hadda maxaa dareemaysa dareenkaaga siduu yahay horta waa xilli baa la joogaayo odayna waana waa tahay weliba jiroolaha waa lay qalay wadnaha layga qalay waa la jeexay halkaa layga jeexay hadda ilaahay mooye cid kaleo igu taageertay ma jirto ya oo aan ahayn madaxweynahaas iyo ra-iisul wasaarahaas hore wuxuu ahaa baan u maleeyaa saacid ma jirno golaha wasiirada dhexgeeyey adugu ay abaalmarin bu siiyey waa raggan kaloo wasiirada soo maray wasaaraddana wax dhiba kalama kulmin ya ugu yaraan ilaa 9 ilaa 9 wasiir waa soo martay aan u malaynayaa wax dhiba kalama kulmin hawshana waa ila wadeen jacaylu miyaa badhbuu jaraayo dagadii cilmi baan ka joogahay dagadii cilmi baan ka joogahay dagadii cilmi baan ka joogahay jeclaystay milguyi la joogaago jideeyaye waa adoonku janto jeclaystay milguyi la joogaago jaraayo guurna ogaaje waa hagaag daawadayaal waxaan intaasi ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka Haldoor oo toddobaadkan aad ku daawanaysaan qaybta labaad ee barnaamijkeena aan ugu kuuragelaynay kaydka warbaahinta qaranka oo uu horjooga ka yahay in badan sareeyo guuto Abshir Xaashi Cali intaan ku kulmi doono barnaamijkeena xiga waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabaday isma dhaafno